بسم الله الرحمن الرحيم جبهة wadani xoreynta ogaadeenaya jawxo waxay u soo jeedinaysaa bayaan iyo baaq nabadeed oo degdeg ah in gobolka Doolo dhibaatadan soo noqnoqotay ee inaga sahaytay dhalinyaro iyo duqeyba ee inaga sahaytay sumcadeeni iyo cibaadadeeni islaamnimadeeni iyo ehelnimadii iyo wada lahaanshihii iyo is ahaanshihii aad hoos ugu dhigtay in degdeg loo joojiyo dhammaan wax garadka gobolka Doolo ee dhinacyada gacantu dhaxmartay iyo dhammaan shacbiga kale ee saameynta ku leh gobolka Qorraxay iyo gobolka Jarar ee deriska la ah gobolka Doolo in arinta loo soo gurmado oo wax garadka iyo salaadiinta culimada ganacsatada dhalinyarada iyo dumarka ama haweenka ogaadeenaya wadaniyiinta in loo guntado maanta hawsha in halka ay marayso hal goob ceebeeda in lagu joojiyo oo ceeb iyo calaflaan isugu keendarsamin idinkuna reedalow ceeb ha qaadanina annagana ciidan la'aan iyo calaf la'aan iyo waji gabax iyo muxuu ahaayay murugo iyo niyad jab ku ridina shacabka iyo halgamayaasha iyo ummadda hamiga sare leh inay hore u socoto doonaysa waxaan ugu baaqayaa ruux kasta oo saameyn ku leh colaadaas oo wax ka qaban karaya inuu jawxo waxay ugu baaqaysaa inuu gacan ka geysto annaguna waxaan ka geysan karnaa waan ka geysanaynaa laakiin hadda ka hor maamulka deegaanku wuxuu ka fogeeyay ururka oo uu ka dhaxmaray shaqaaqooyinka shacbigeena dhaxmara inaan xirfadda iyo aqoonta iyo xigmadda iyo taariikhda aanu leenahay deminta colaadaheena inaan kaga qayb qaadano maamulka deegaanka diiday هيا maanta arintan way soo jiintay khasaaro badan way keensatay billahi calaykum aakhiradeenna aanu turanno sumcadeena aanu turanno xooggeena iyo dhaqaalaheena aanu turanno dhalashada iyo wadaninimada aanu turanno dhul loo kala xadeeyo ummad ma jirahayo dhul aan kala lahaanayna ma jiro aayatiin aan kala lahaanayna ma jiro ama waa wada noolaanaynaa ama waa wada baaba'aynaa ama wada xoroobaynaa ama wada guboobaynaa ama wada cayroobaynaa ama wada horumaraynaa meel ka hormaraysa ma jiro waxa muuqata arintan gobolka Doolo iyo gobolka kaleba in maamulku arimihii dhaqanka ee lagu xallin jiray khilaafaadka wadankeena ka dhaca ee qabaa'ilka iyo beelaha iyo qoysaska ehelka dhaxmara habkii lagu xallin jiray ee effective-ka ahaa ee midhaha lahaa ee wax soo saarka lahaa ee ku soo dhaqmi jiray ee la xoojin jiray in laga dhaxmaray oo maamul xukun siyaasi ah iyo arin ciidan oo lagu farageliyay taasuna qof la xidhay iyo qof la dilay mooyaan arintii ay waxba demin kari weyday sidaa daraadeed waxaan maamulka deegaanka ugu baaqaynaa hawshan way soo jiitantay go'aamadiina iyo talooyinkiina wax soo saarkoodii waan aragnaa ha loo baneeyo ha lagu gacan siiyo ha loo abaabulo ha loo soo jeediyo in habkii dhaqanka ee aan lahaan jiray ee salaadiinta iyo culimada iyo waxgaradka iyo labeenta iyo wadaniga iyo xilkaska wadanka intuu isxilqaamo oo colaadaha iyo khilaafaadka demin jiray habkaas way habka ugu fiican hadda meesha ay marayso in faraha looga qaado muxuu ahaa habkii dhaqanka ku soo xallin jiray sidaasan maamulka dawladana u soo jeedinaa maamulka dawlad deegaanka Soomaalidan sheegaynaa hawshan muddo sanad ka badan gacanta ku haysay hore u dhaqaajin kari la waxaan ugu soo jeedinayaa mar kale wax garadka gobolka Doolo iyo gobolada deriska la ah ee shacbiga Soomaaliyeed meel joogaba inuu arintaas u guntado si degdeg ah loo joojiyo ilaahayna inaga qaboojiyo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh